السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري واد ولا هيك قالقة ملو البود شوكتان channelka laga daawanaysan waa Faaduma Filsan qofka idin la hadlay waaniga Faaduma Filsana waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin inta xanuunsanna ilaahay inoo caafiyo soo dhawaada haddaad nagu cusub tahay oo tahay markii koobaad eed noo imaato eedna soo booqato si xishmad leh waxaan kaaga codsanayaa subscribe-ta noo saarto like-ta dhac ku siiso commentiga ra'yigaaga kusoo qorto haddaad horey noola joogteen aad baad u mahadsan tahay waxaan kaloon rabaa inaan halkan uga mahadceliyo walaalahayga isoo subscribe gareeyey maxaa la dhihi jiray soo raacay kuwaasna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intii hore iila joogteen sidoo kale aad ayaan idinku mahadcelinayaa dhammaantiinna aad ay u wada mahadsan tihiin madaxa meel la taabto oo ka sarreysa ma jirto madaxa ayaa ii saarantihiin dhammaantiin aad aad mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah meel walba joogtaan intaa kadib beryahan waxaa socota labadan beri maalinba horta musalsal baa noo bilowdo oo maalinba waxaa la dhahaa in brogrammaa bilaabato waa iska dhammaataa beryahan waxaa socota qurux ku dhigliya maariisha isdagaalay qurux ku dhigliya maariisha isku dhacay jacayl horey isu ahaayeen war lee horta maanta oo dhan soconaay ya war lee maanta oo dhan soconaay horta afkooda lagama maqlin waa isdagaalnay iyaga lagama maqlin annaga isjeclayn oo jacayl walaaltinimo ka badan isjeclaynna kama aynaa maqal ilaan qabri baa ina sugaya been lama soo shirtigi karne ya iyaga dadka waxaan laga maqlin dusha in laga saaro waa khalad soo ma aha laakiin walaaltinimo horta annagu ka maqalnay bal video yaro wiilkan ka sameeyey isla aragno السلام عليكم شيخ عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ قرح كديق لم كسيسي iyo jecelkiisi hore. أنا أقولك روايدي waxbay soo duub jireen beriyaan lama hayo. واقرت. marka sheekha waa waa shakeeyay nooc ma kala buriyo. marka sheekha waa bogtahay ma kala qabat. wax kaaga jiro mal adiga. wuxuu taagan yahay sheekhow ya wallahi billahi horta meel inagu soo qabanayo ma jirtaan ku iri ya sheekhyadii xataa warka waa kasoo jarjaraynaa hadalkii ay dhaheen iyo dadkii ay wax wanaagsan u sheegay su-aalihii ay sida fiican uga jawaabayeen intaan soo jarjarno baa si qaldan u keenaynaa wiilka hadda wuxuu leeyahay sheekhow kulaha qurux ku dhiigle iyo jacaylkiisa hore riwaayadihii waxbay isla soo dubi jireen beryahan lama hayee mashiine culi baa kala buriyuu taagan yahay shiine culi haystaaba shiine culi halkan ka salaameynaa wixii mashiine culi baa kala buriyay sheekhu su-aal buu ka jawaabay waxba aduu ka jawaabo haa yiri markii hore ma ogtihiin ilaa su-aashuu soo jiray waa ogtahay maa kale qabatid maa kale celisid waxba kaama geli alla anaga haddoo soomaalina dhib badanina mararka qaarkood yaa sidan sheekhyadiina xataa ma u dhacanay dadkii hadda social mediaha iskaga jiray wax soo gudbin jiray iska dhaafna warkii dhaaf sheekhyadii xataa ma gaarni cajiib sheekhyada iska dayno sheekhyada aan ka leexano teeda kale horta arrintan maariishii qurux ku dhiigle horta waa isdagaaleen la dhahayana hadday xataa isdagaaleen oo dagaalka xataa wax jira uu yahay ya dadka ugu dhow ee kolley asxaabta la unbaa heshiisiin kara hadduuse jirinna dee been waxaa layihi beenuraad male bay soomaalidu dhahdaa moogta inkastoo ay dhahaan been fakatayna run ma gaadho beenuraad male baa u badanta wuu iska dhammaanaysaa dagaalka yaana u saadin ya dagaalka bahalka ayayna u saadin dagaalka horta wax fiican ma aha dad walaalo oo isku faraxsan oo si fiican isula shaqeeyo oo xataa sida wanaagooda dad lagaga dayda weeye laakiin yaynaa dhibaato u horseedin oo dee maxaa dhihi jiray haddii qofka aad waxun ka sheegto dhahdo hadda kaba soo qaad waxun had dagaal maba kasoo dawaab isdagaalin xataa hadda dad badan dhahaan xataa bilowba samadu furnaato haadaa loo dhahaa ya xagga sare aadaya marka arrinta jacaylkana usoo laaban horta jacayl walaaltinimo unbaa ka maqala ya ku walaaltinimo dad walaalo aan nahay walaaltinimaa naga dhexaysa wada shaqaynaa naga dhexaysa intaa waxaan ahayn qofkii ka maqlay ha soo sheego waa isjecelnahay oo jacayl kalaa naga dhexeeya qofkii ka maqlay isagu ha soo sheego kolley anigu ma arkin beentaas ma sheegi karo ma arkin jacaylka walaaltinimadan wax ka fiican ma jirto
wax ka wanaagsanna ma jirto yah walaaltinimada meel loo dhaafa ma lahan walaaltinimadana qiimaha ay leedahay waxaa dareemi kara qofkii arkay ayaa dareemi kara walaaltinimadana qiimaha ay leedahay teeda kale dadkeena soomaalida dad aad u wanaagsan baan nahay dad aad u fiican baanu nahay yaa qaarkeen qofkii horumar gaadha qofkii maxaa la dhihi jiray horay u socda sida koolada yeena xumaan u raadino saa ayayna ugu dhegin horay u soco aan dhahno soo ma aha aynu dhiiri gelino adduun weynaha kala fiiri dadkooda horumara way ku faanaan waxay ku leeyihin qofkaa saasuu ahaa way sii dhiirigeliyaan way ku faantamaan annaga laakiin kii noo horumare ee meel ka soo muuqda yaa baa burush u qaadanaynaa burush ceeba uusan lahayn baa u raadinaynaa oo maanta dha waxaa ka sheegaynaa oo taana aan iska dayno wadajirka wax ka fiican ma jiro saasaan idin rajaynayaa dee khayr badan baan idin rajaynayaa bal idinkuna fikirkiina kusoo darsada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu